waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu tilmaamayaa tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa loo soo diray caalamkoo dhan inuu u digo intuu nebi maxamed cagtiisu gaadhay waxaynu naqaannaa inuu in kooban tegey intii uu nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam ama rasuulka ahaa xaggaa sarena mala tabuuk baa ugu fogayd meeshuu tegey xagganna maka iyo agagaarkeeda inta ka dhexle buu gaadhay ilaahayna wuxuu yidhi waxaannu kuu soo dirnay nadiiran lilcaalamiin inaad noqoto dunidoo dhan inaad u digto laakiin intuu saxaabadii isugu yeedhay calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu u tilmaamay war diintii ma idin soo gaadhsiiyey allaahumma fashhad markaasuu lahaa taa macnaheed waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam risaaladii dadku ku reebay cid waliba inay sii qaaddo dunida inta kale sii gaadhsiisa waa mas-uuliyad saaran idan waxaa habboon in qof kasta oo muslimi uu dareemo mas-uuliyaddaas inay saarantay inuu isagu mas-uul ka yahay diinta inuu xambaaro oo aadanaha intiisa kale uu gaadhsiiyo ama mid muslima oo jaahila ha ahaado ama mid aan tawxiidsanba ha ahaado ama mid aan maqalba islaam ha ahaado innagay korkeenna saarantay dadka inta hadhay inaynu gaadhsiinno